بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan wadaagi doonaa maantana mahmaah aad u cajiib ah. Mahmaahdan waxay odhanaysaa hadal aan fiiro loo odhan iyo caano aan fiiqsi loo dhamin labaduba feedhahay waxyeelaan. Markaad hadlayso ee aad xog sheegayso, waxa kula gudboon inaad ka fiirsato waxaad odhanayso, una fiirsato sidaad u odhanayso si aad u hesho maxsuul aad ka fiirsatay oo wanaag mooyaane aan dhib ku lahayn. Haddaad war tabinayso, warkaagu waa inuu xaqiiqo iyo hubanti ku qotonaadaa. Haddii aad sheekaynaysana, waa in sheekadaadu tahay sheeko xaqiiqada salka ku haysa. Laakiin haddii aad hadalka iska tidhaahdo, waxaad dushaada saaraanaya wax kasta oo ka dhalan kara hadalkaaga. Nin baa lagu yidhi hebelow war raba, markaasuu yidhi war aabbahay baa u xidhan. Sida laga dhadhansanaya malaha odayga dhalay waxa uu ahaa nin war badan oo wixii ku soo dhacaba yidhaahda. Haddii aad hadalkaaga xakamayso, ereyga aad odhanaysaana uu kuu qodobaysan yahay, wax badan baad kaga badbaadaa. Laakiin haddii aad watalshaanaq tahay oo erey kastaba iska yidhaahda, siduu doonana u yidhaahdaa, waxaa suuragala in waxaan u mahadini ay afkiisa ka soo baxaan. Markale Soomaalidu waxay ku mahmahdaa hadalka intaanad odhan ayuu ammaanadaada yahay. Hadalku inta uurkaaga ku jiro ee aanu dibnahaaga soo dhaafin ayuunbaad adigu mas'uul ka tahay. Kolse haddii aad tidhaahdo bulshaduu dhex yaallaa oo qof kastaaba siduu rabo ayuu u macnaystaa. Haddaba labadaa mahmaahood ee ah hadal aan fiiro loo odhan iyo caano aan fiiqsi loo dhamin, iyo tan kale ah hadal intaanad odhan ayuu ammaanadaada yahay, ayay laba halabuur laba tixood ku kala dareen. Tixda hore waxay odhanaysaa hadal aan fal qurux badan ama fiiro loo odhan, caano aan fal qurux badan ama fiiro loo dhamin, wuxuu yidhi nin faaqiday feedhahay waxyeelaan. Mid kalena wuxuu yidhi intuu hadalku feedhaha weli uu fadhiyay buu faa'iido leeyahay. Haddii uu fakado oo faruuryaha ka soo baxo, fadal laguma gaadho. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.